xoogagga iska caabinta Israa'iil ee Falastiin ayaa tilaabo diblomaasiyadeed oo xeeladaysan u qaaday dhanka soo afjaridda dagaalka Gaza. Bilowgii waxaa loo arkayay inuu Xamaas heshiiska Donald Trump garwadeenka ka yahay ku ahaa labo daran mid dooro oo haddii ay sidiisa ku qaataan waxa ay waayi lahaayeen xuquuqdoodii maamul, siyaasadeed iyo difaac ee dhulka Falastiin, gaar ahaan Gaza oo si rasmi ah gacantooda uga bixi lahayd. taa oo sababi lahayd in rayidka Falastiin ka aamin baxaan, halka tan labaad ay ahayd inay heshiiska duuduub ku diidaan, taasna ay sababto in xasuuqu sii socdo, mas'uuliyadda dhiigga daadanaya ee dadkoodana iyagu qaataan. labadaasi midkoodna ma samayn, sidaa oo ay tahayna waa aqbaleen heshiiska, taasoo muujisay bisayl siyaasadeed iyo istiraatiijiyad heer sarreysa oo ay la ciyaareen dhinacyada Mareykanka iyo Israel. waa aqbaleen heshiiska gaar ahaan labo ka mid ah qodobadii ugu muhiimsanaa oo ahaa in guud ahaan la sii daayo maxaabiista iyo in maamulka Gaza ay uga tanaasulaan nidaamka ku-meelgaarka ah ee Trump soo jeediyey in loo dhiso. tani waxa ay guud ahaan meesha ka saartay rajadii Israa'iil ee ahayd inay Xamaas inta heshiiska diido ay dagaalka halkooda ka sii wadaan ilaa ay ka ciribtirayaan rayidka Falastiin. waxay sidoo kale meesha ka saartay doonistii Mareykanka ee ahayd in guud ahaan Xamaas laga tirtiro cariga Falastiin, cudud ahaan, maamul ahaan iyo difaac ahaanba. guud ahaan 18 qodob ee kale ee heshiiskan ayay xoogaggu ka aamuseen, ma diidin mana yeelin, taasoo aan lahayn jiho loo qaado, balse ay ku gowracan yihiin Mareykanka iyo Israa'iil. oo Mareykanku gaar ahaan madaxweynaha dalkaas Donald Trump waxa uu goor horeba soo dhaweeyay jawaabta Xamaas oo uu ku sheegay inay ka dhigan tahay nabad qaadasho, isagoo dhinaca kale ee Israa'iil ugu yeeray inay dagaalka degdeg u joojiyaan. in la joojiyo daadashada dhiigga rayidka Falastiin, Gazana loo furo marinada gargaarka caalamiga, la qaado go'doominta oo la soo celiyo noloshii bulshada Falastiin, maxaabiista ka xiranna loo sii daayo Xamaas, guul ku meel gaar ah ayay uga dhigan tahay dhinacooda, halka isla taasi ka hor imanayso qorshayaashii dagaalka Israa'iil ee ahaa in bulshada Falastiin dhulkooda laga barakiciyo si qorshaha isballaariska ah ee Yuhuuddu u hirgalo, kaas oo mid ahaan ahaa nabacyadii ugu waaweynaa ee ay duulaankan ka lahayd Israa'iil. inkastoo Xamaas ay marka doc laga eego jawaabtooda aqbalidda heshiiska qaybtii ay qiimo sare ugu kacayso oo ay sii dayn doonaan guud ahaan maxaabiistii ay ku gurgurtamayeen, haddana waxay ciyaareen wax loogu yeeray xeelad diblomaasiyadeed heer sare ah. bombo ganjola oo la doonayay inay iyaga ku qaraxdo ayay si farsamaysan nabadqab isaga celiyeen, taa oo hadda la taal dhinacii bilowgii soo gamay. waa Mareykanka iyo Israa'iil, midda oo ka dhigan hadda inaysan dhinacyadani haysan doorasho aan ahayn hirgelinta heshiiskii ay iyagu gole keeneen oo qayb ahaan lagu raacay, qaarna aamus looga jawaabay.